kalfadhigii 14aad ee Golaha Deegaanka Degmada Burtinle ayaa waxaa maanta si rasmi ah u furay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta dawladda Puntland iyadoo ay goobjoog ahaayeen wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska dawladda Puntland wasiir dawlaha wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha gudoomiyaha gobolka Muuqaal xubnaha Golaha Deegaanka Degmada odayaasha waxgaradka ganacsatada iyo ururada haweenka iyo dhalinyarada degmada Burtinle ugu horeynaya gudoomiyaha Golaha Deegaanka ahna duqa degmada Burtinle Maxamuud Axmed Buurdibi waxa uu soo bandhigay waxyaabihii uu qabsoomay golaha labada kala fadhi intii uu dhaxaysay labadii kala fadhi intii uu dhaxaysay koow dhanka ammaanka waxaanu qareemid iyo dadaal dheer u galnay sidii loo heli lahaa saldhig boolis waxaan ku guuleysanay in la helo saldhig casri ah oo boolis dhanka biyaha sida ka warqabtaan muddo dheer golahan deegaanka ka hor degmada Burtinle ma lahayn biyo la isku haleeyo waxa loo aroori jiray bacaad weyn iyo rabaable dadaal dheer ay galiyeen golaha deegaanka hadda jira iyo shacab weynaha ay uga horeeyaan ganacsatada deegaanka waxa laga hirgeliyay ceelal biyoodyo waxa qayb ka ahaa hay'adda baasaweyn ee biyaha u qaabilsan Puntland ceelashii waa la mideeyay isla markaas waxa loo gudbay in magaaladii biyo gelin lagu sameeyo golaha deegaanka hadda jira wasaaradda deegaanka oo iskaashanay waxaanu laga hirgeliyay deegaanka mashruuc weyn oo ah dhaamam afar dhaam oo laga hirgeliyay deegaanka Jalam Burtinle Farchano iyo Faratooyo sidoo kale waxa dayactir lagu sameeyay 25 baaragood ay lahaayeen dad danyara oo reer Burtinle qaar kamid ah odayaasha nabadoonada iyo waxgaradka degmada Burtinle ayaa waxa ay bogaadiyeen waxqabadka maamulka degmada Burtinle iyagoo codsaday in halkaasi laga sii ambaqaado waxaan rabnaa magaalada idinka masjidkeeda leedin doortay waa leedin dhiibay hadii leedin dhiibana waxa la rabaa wixii sharcigu ogol yahay dawliga iyo inoo degano waxa weeye wasaaradii inoo qaabilsanaa ay joogan iyo gobolkii in la ilaaliyo dhaqankeena Burtinle iyo sidaan ku caanamaali jirnay iyo ugu sana la ilaaliyo odayaasha iyo wasiirada waxa waa ka codsanay war konsolkan codsiga iyagii ma daynayne ilmaada reeyalo walaalayaal odayaal inagoo isku dada anoo og ragga qaarkiis inay xil dooni doonaan loo daayay maanta konsolku awood dawladeed buu leeyahay waa baarlamaan degmo waa baarlamaan dawliga wixii hadda uu ka waramayay gudoomiyaha degmadu ma qabsoomeen haddaan systemka dawliga ah jirin haddaan konsol jirin haddaan nidaam iyo kala dambeyn iyo dastuur jirin ma shaqeeyeen ma yimaadeen federaalna wax lagama keeneen Puntlandna wax ma qabateen bulshaduna wax ma qabsateen dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Muuqaal Cabdisalaan Xirsi Xasan Gujir agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dawladda Puntland wasiir dawlaha wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Puntland ayaa sheegay in degmada Burtinle ay ku tilaabsatay horumar badan degmada Burtinle waxay sameynaysaa horumar badan shanta degmo oo garowe degmooyinka hadda horumarka ugu badan ku talaabsanaya ama sameeyay ka mid tahay ama dhinac isku tashiya ku yimaada horumarkaas oo deegaanku isku tashaday iyaga iyo golahooda deegaanka ama dhinac deeq bixiyaasha doonariska mashaariic ay ka heleen ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska dawladda Puntland Marwo Amina Cismaan iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta dawladda Puntland Mudane Maxamed Dhabancad ayaa si rasmi ah u furay kalfadhigii 14aad ee Golaha Deegaanka Degmada Burtinle iyagoo bogaadiyay waxqabadyada ay soo bandhigeen maamulku intii u dhaxaysay labada kala fadhi shirkan wuxuu ku bilowday furitaankii oo caadi ahaan kalfadhi kasta oo la qabanayo ay ku soo jeediyaan Golaha Deegaanku waxyaabihii uu qabsoomay waxaynu marxaati ka nahay inuu qabsoomay waxqabad ballaaran oo aan cidna inkiraynin dhammaanteena aynu marxaati u nahay waxqabadkii inoo qabsoomay oo xukuumad ahaana aan ku faano waxyaabaha inoo qabsoomay Golaha Deegaanka Degmada Burtinle kalfadhiga waa kalfadhi caadi ah kalfadhigu wuxuu ka mid yahay kulamada qaynuuniga ah ee golayaasha deegaanka sida in badan halkan lagu celceliyay mudanayaashii halkan ka hadlayay ay sheegeen waxa dadka kala haga oo isku haya waa heshiiska
heshiiskuna waa sharciga waxaa ilaahay mahadiisa in maanta aynu halkan u joogno mid ka mid ah kulamadaas oo ay leeyihiin golaha deegaanka degmada Burtinle oo kii 14aad ah oo ka dhaca degmadan waxaan midaan la dhayalsan karin xaqiiqna ah in horumarka halkan maanta laga soo bandhigay aysan weli gaarin degmooyin laga yaabo inay ka qadiimsan yihiin degmada Burtinle marka arintaas waxaad ku mudan tihiin ammaan haddaad tihiin golaha deegaanka iyo guddoonkoodaba haddaad tihiin cuqaasha haddaad tihiin dhalinyarada haddaad tihiin ganacsatada guriyay Sajid Jaamac warbaahinta dowladda Puntland Burtinle